Asalaamu calaykum asxaabtayda qaaliga marka lagu soo dhawaada saacadii cunto karis asxaabta maanta waxaa rabaa inaan idinkaga faa'iideeyo sida u sameeyay doolshadana u jeediin doolsha cananaas waaye marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaan insha Allah waxaa ka sameyn doonaa 4 galaas 4 deciliter oo bur ah waa 2 bakeeri shaah lagu cabo labadiisa oo bur ah waaye marka deciliterka loo qiyaaso kadib hal qaado oo yariis oo baking powder faxisada oo doolshooyinka loogu talagalay iyo hal qaado oo carfisada doolshooyinka loogu talagalay oo ah vanilla sugar marka labadaas isticmaala waa isku qasa hadaa rabtid heel oo si fiican u shiidan waa ku darsan kartaa waa ku carfin kartaa burka waa kusii qasan kartaa kadibna inta waxaa sameynaa markaa burka saas usii diyaarsaday meel la dhigana inta sokorta ayaa kusii maaragta dhalaalsana sokortaana waxaa loogu baahan yahay in hadhooti markaa doolshada inta foornada gelinin qaybta hoose inaa ku shubtid oo cananaaska aa saarsaartid marka sokortaasay dhalaalsanaysaa dab gaaban ogeey haddii kala dhow sokorta way kaa guban kartaa micnaa ciyow hadee dab kaa qaado oo gubato hadhooti gubnood camal ay doolshada usoo dhadhamay marka waxaa la rabaa dab gaaban inaa ku dhalaalisid subag yarna waa ku daray hadaa rabtid waa ka dhaafi kartaa subaga hadaa rabtidna waa ku darsan kartaa adigay kugu xiran tahay marka hadda saana u dhalaalinayna oo tartiib intay ka dhalaaleyso waxaa sii sameysanaysa dabka u gaabine inaa qastid ma loo baahan wax badan kadibna waxaa sii qasanaysaa doolshadaada sii qasan micnaha waxaa sii qasan kartaa ukunta insha Allah dabka u gaabso sokorta wax yar maanta oo dhan la soco insha Allah hadda marka waxaa sii qasaynaa ukunta insha Allah marka ukunta waxaa isticmaali doonaa 4 xabo maadaama burka 4 deciliter oo ahay ukuntana sidoo kale 4 xabo isticmaali doonaa iyo sokortana qiyaastaada hadda inta meesha inta sokor aan ku daraayo waa qiyaasteeda adigana sidoo kale qiyaastaada isticmaal ani hadda 2 deciliter iyo wax yar isticmaalay hadaa rabtid macnaha macaan badan inay ku noqoto ka badan isticmaal hadda intaan aan ku daray ani hadaa ku dartid macaan saaid ma ku noqonayso dhexdhexaad ay noqonaysaa laakiin macaan badan hadaa rabtid sokorta waa ka badsan kartaa inta 3 deciliter camal ayaa ka dhigi kartaa oo buuxda 4 deciliter saaid waaye laakiin 3 deciliter camal way kugu filantahay insha Allah kadib marka maaragta ukunti xoogaa qasay caana ayaa kusoo darsaday sidoo kale saliidna waa ku daray asxaabteyda videoga ma laga arkaayo saliida iyo caanaha waxaa sameynaysaa koobka haafkiisa ayaa isticmaalaysaa insha Allah waa 1 deciliter koobka oo shaaxa haafkiisa kadibna burka ayaa ku dhameystiray macnaa burka oo ku qasnay ayaa ku dareysaa ukunti kadibna si tartiib ayaa ugu qasaysaa insha Allah marka burka sidaan u qasatid waxaad diyaarsanaysaa saxankii oo foornada kula gali laheeday aniga hadda inta u jeedin subaga marina hadaartid saliida marsan kartaa iyo waxaa mari doonaa rootiga qalalan oo maaragtay bread crumbs mid kala dhahayo ayaa ku shubaa soo doolshada maaragtay dooti hoos iga dhigin hadaa rabtid waxaa isticmaali kartaa bur ayaa ku shuban kartaa marka saliid iyo bur iskula shubi kartaa ama subag iyo bur kadibna sokortii aan soo dhalaalsanay ayaa sidaas ugu soo shubaneynaa oo jeedin sokorta maaragtay si oo waxay noqotay maasha Allah karameel camaleeto marka sidaas markay ku noqoto saxanka ku fidfidisid waxaa soo saaranaysaa cananaaskana midka warwareega ayaa isticmaalaan nooca rabta isticmaali kartaa laakiin warwareega ayuu ku qurxoon yahay saxankaagana way ku xiran tahay saxan yar hadaa haystid 4 xabo camaleed waa saaran kartaa aan laakiin saxan weyn ayaa isticmaaloyaa marka sidaas darteeda cananaaska inta oo deeqa saari doona insha Allah
markaa sidaas cananaaska usoo sarsaaray saxanka kadib waxaa kusoo shubanaa burki. Sidoo kale waxaa sameynaysaa inta aa maaragtay dulshada sii qasanaysid foornada sii daaro si kugu sii kululaato. Hadhow foorno kuleel ayaa loo baahan yahay inaad sii gelisid. Foornada markaa gelisidna 30 daqiiqo ayaa ku hayn doontaa. Waa 175 celsius na u geynaysaa. Sidoo kaleeto haddii maaragtay waqtigii waxaas waa la socon kartaa maanta dhan dulshada waa fiiri kartaa gaduudka inta gaduudanayso. Hadda micna foornooyinku way kala duwan yihiin. Dulshadaada waa la socon kartaa dhaxdan waxaa inay ka bislaato waa fiirinay micnaha mase qor ayaa gelinaysa mase stakiinka gelinay mase baastada maaragtay dhadheerka aa ku fiirinaysa dulshada dhexdeeda inay bislaatay. Aniga hadeertaan 30 daqiiqo ayay foornada igu jirtay 175 celsius na waa u geeyay. Foorno oo hore usii kululeedna waa geliyay. waa kana hadeertaan markaa kasoo bixiyay sida u jeediinba. waa kana maasha Allah quruxdan ay noqotay. Dulshadan waxaa la rabaa ayadoo kuleel ah inaad gedisid maadaama sokor hoosta ee taalo. Sokorta hadii macnaha dulshada aad la sugtid intay ka qaboweyso sokorta hoos ayay ku dhageysaa. Hadhowtina maaragtay dulshada markaa gedisid cananaaska iyo wixii dhan saxanka kaaga haraa. Marka waxaa la rabaa dulshada ayadoo kuleel isla markii inaad gedisid. maasha Allah sidaan ayay noogu soo baxday. aad iyo aad ayay u macdahay asxaabtada qaaliga. waxaa rajeynaa inaad barooweysaan insha Allah waadna ka heli doontii haddaa barooweysaan comment igu soo qora. asxaabtada inta oo maaragtay janaalka hore u joogtay aad iyo aad ayay u mahadsantihiin. videoga aan sii share gareeya insha Allah asxaabtiina familkiina sii share gareeya. asxaabta cusubna kusoo dhawaada janaalka waa janaalkiina insha Allah idinkana sii share gareeya familkiina asxaabtiina kulli la sii share gareeya. markale kusoo dhawaada janaalka insha Allah waxaa isku arki doonaa videoga xiga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.